xijaabku marka la eego sharcigeena wuxuu leeyahay shuruudahaas waa 8 ragga iyo dumarku way wadaagaan 6 kamid ah labada dumarka la dheeraada labada dumarku la dheeraadii waxa weeye gabadhu ama ruuxa dumarkii xijaabka gashanaysa waa inaanu ziina lahayn dhalaal walaa yubdiina ziinatahunna buu ilaahay dhalaal maradooda quruxdeeda ayay muujin quruxda waxa kamid ah maradii ka mara bilecle oo ragga indhahooda soo jiidanaysa waa la diiday midka labaad ee la dheerin ragga waxa weeye bukhuur iyo udgoon waa inaanay lahayn maradu rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay ruuxa dumarka ah ee bukhuur iyo udgoon soo marsata ayay masaajidka iyaga cishaayiga noogu imanin buu mar kalena waxa buu waa bazaaniyada waa gabadh sinaysata buu ereygaas u cabiray nabigu alayhi salaatu wasalaam waa dumarka xun buu qofka hadii cadar la baxdo waa hadal adag weey labada dumarka la gaara ragga dharkooda shardigaas waxba uma xidhna shuruudaha kale wadaagaan waxa kamid ah marada la gashanaya waa inay tahay mara adag oo aan ahayn wax jirku ka muuqanaya taa raggana looma ogola inuu cawradiisa ku asturo dumarkana looma ogola mara shafaaf ah oo jirkii laga akhriyayo sidoo kale mara ku dhaganna waa inaanay ahayn oo dhalinyaradu rag iyo dumarba waxay hadda qaataan oo moodadii noqotay mara xubnihii jirkaba muujinaysa raggana waa ka xaraam dumarkana waa ka xaraam cawradii waa in la qariyaa oo ragguna cawru leeyahay dumarkuna cawray leeyihiin qolo waliba inay cawradooda si dhammaystiran u qariyaan weeye dhalinyarada waxaynu aragnaa surwaalku inuu ka dhacayo oo xaggii dambe dabada ay muuqanayso dumarkiina waarigaa sheegaya waaxaha qaarkood ay bannaan yihiin saddexdaa shardiba waxaa laga fahmayaa xadiidka uu nabigu yiri aakhiru zamaanka waxa iman doona nisaa'un kaasiyaatun caariyaat dumar waxna xidhan qaawana marka qaawanaantu saddexdaaba way noqon kartaa maradii oo la isku dhajiyo mid khafiif oo la qaato ama cawradii qaar bannaan yihiin waxay ka siman yihiin dharka oo dumarku gashanaya waa inaanu ahayn kii ragga ka raggu gashanayaana waa inaanu ahayn kii dumarka waa laba jinsi oo kala nooca dhar bay kala leeyihiin kala gaara marka qolo waliba inay dharkooda xidhataa hadduu ninku dharkii dumarka gashado ama ruuxa dumarkii dharkii ragga ay gashato nacdal baa ku dhacdo nabiga nacdalay calayhi salaatu wasalaam taana waa la iska ilaalinayaa way dhici kartaa waxyaabaha qaarkood oo la wadaago la yaab lahayn u gaarka ah dumarka kaafiraadka ah ee gaalada ah taasina nabiga diiday calayhi salaatu wasalaam man tashabaha biqowmin fahuwa minhu qofka qolo isu egeysiiya iyagu ka mid yahay buu waxay ka siman yihiin thawbu shuhra mara markaa caan ah oo ummadda kaa dhex saaraysa raggana looma ogola dumarkana looma ogola maradaa qofka ragga ka dhex dadka ka dhex saaraysa shakhsiga markuu xidho ee indhahoo dhamise ay u wada eegayaan qofka xidha maalinta qiyaamaha mara dulliya buu ilaahay u xidhaa buu thawba dilla mara dullaysa axaadiitan daliishanaynaa wada saxiix marka taa loo geliyana ilaahay wuu ku holciyaa markaasaa naar lagaga dhigaa raggana looma ogola dumarkana looma ogola marka 8 shardi in la ilaaliya waa lagama maarmaan marka 8 shardi waxa ku jira sida ilaahay baa aayadda ku sheegay yudina calayhinna min jalaabibihin dharkii ha ku sii daayaan jirkooda oo dhan jilbaabki oo jilbaabna waxa la yiraahdaa min alqarni ila alqadam marada asturaysa tin iyo cirib waa in maradii wada qarisaa inta wajiga iyo gacmaha ayaa laga soo reebayaa waqtiga gabadhu tukanayso madhabta badankoodu waxay ku dareen markay ajnabiga la joogto intaana way qarinaysa wajiga iyo gacmaha 8 shardi marka laga yimaado oo laga maarmaan inta si u ansaxa in loo ilaaliyo dumarkuna taa ay ku baraarugaan si cibaadadii ay ansaxdo ajrigiina ay helaan taasi waa xijaabkii sharciga ah xijaabku wuxuu leeyahay diin ahaan faa'iidooyinka waxa ka bida alxijaabu daaca xijaabka ilaahay baa lagu adeecaa sida salaadan iyo soomka loogu adeecayo ama raadacay إلهي بأمره وحده يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين نبي محمد أوريها يهب لها يدمرك الله يقانك أشهادنا أنت بوحى أمرت أين حجابك قشدان وأمر marka inay ooridu amarka qaadato ilaahay bay ku adeecaysa maaha wax carbeed
ما هنا واحد سك عرفية ما هو قفك اختيار له تاني لو قاعد هو مهم الحجاب إيمان حجابك هو قيبها إيمانك كمدية وسهلا معها وإلا وضع باغبة واحد ركيس والنساء المؤمنين أو أين آخرين فرين تجارسيبا لي ضدك الشهادة نية دمر كولا دمر كإيمان كلا فرين تكسعته وهكذا رب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن دمر كمؤمنات كواحد كنت هذا إشي نحران تكلم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها مركا مؤمنات بإلهي الشيء أرنتنا وحى الدم قيساو الدريم يقفك إيمان كله كسانا مركا إلهي قادنا سبحانه وتعالى أيضا حجابك هو إيمان سيدوك له حجابك وحوي طهارة للقلب قلبك أي ظاهر وي مركو إلهي حجابك كسو ورمين رقي دمر كيبا والله هضلي كدبنا وحو لذلك مظهر لقلوبكم وقلوبهن رقا هداتين هي الدمر كهداتهين لبدي النبا وحا إذين في عني الدمر كحجابتان وعورضا موقتا قلبي وسخيسا ورقي قلبي وكوسخوبيا دمر كينا قلبي وكوسخوبيا شيطان كفا إذي سنة الحجاب علامة للعفة حجابك علامة وحوية هاي قفكني إنه يهاي من دورصون سيد غالب كاو عينك ساد ردد بايلها ولذلكم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا دمركي إن لقرتين ينطلع في فاضو دورصون سيدا سأودو وآن مركا لريبين وقفك إسقاوينا إلى أقبو صوب بحوعد ولو يدبيسا قفك إسكا أسطراننا وقف لنبت قلنا الحجاب حياة حجاب هو حشوط waxay u taagan tahay ruuxa dumarkii markay xijaabanta inay xishoodka calanka u sido haday isqaawisana waa qof xishoodkii ka taga weeye shanta arrimood waa fawaid diiniya oo ruuxa dumarka ahi iyo raguba ka cawradiisa asturaya ay ka helayaan asturnaanta iyo cawradaas oo ay qarinteeda ilaahay ku adeecayaan subxaanahu wa tacaala intaas oo daliila iyaga oo ku dhaqmaya casrigan aynu joogno daraasaday sameeyeen nimanka gaalada ah ee dumarka qaawiyay iyaga laftigooda waxay ka marxaati kaceen inuu xijaabku faa'iidooyin leeyahay dhinacyo badan dhinaca u horeeyuu leeyahay waxa weeyaan bay yidhaahdeen dumarka xijaabta iyo dumarkaan xijaaban farqi baa la helay daraasaday ku safshar iyo khayrba way baadhaan iyagu si ay wax badan u ogaadaan marka waxay yidhahdeen kansarka aadka u khatarta badan ee ku dhaca maqaarka wuxuu u badan yahay dumarka caariyaadka ah ee haafafka iyo garanka gashan oo wuxuu ka yimaadaa sida badan ashicata shams albasfanjiya fallaadhaha qoraxda ee marar fara badan ruuxa dumara ku dhacaya jirhkeeda ayuu ka yimaadaa waana arrin wadamada gaalada ku badan oo wadamada islaamka xijaaban aan lahayn way ka markhaati kaceentaa xikmadana ilaahay baa ogaa subxaana wa tacaala xijaabku bay yidhaahdeen faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah ruuxa dumarka ah xijaabata waxaa la ogaaday bay yidhaahdeen inay ka ilaaq iyo dhibaato yar tahay wase iyagu yidhaahdeen daraaso 2015 ay ka sameeyeen New York ayaa ka markhaati kacaysay ku caddeeyeen way ka ilaaq iyo dhibaato yar tahay bay yidhaahdeen ta xijaaban inta aan xijaabnayna qaawan waxay sameeyeen ruux dumara oo dhalinyaro ah oo haaf iyo garankeedii iska gashan ay yidhaahdeen laamidaa dheer mar laamidii bay martay muddo saacada bay socotay 10 jeer baa la ilaaqay bay yidhaahdeen oo dadkii ka soo horbaxaya iyo dhalinyaradii mid hadal ku tuura mid dabada yara qabta mid u sanqada mid u iljabiya 10 jeer bay arrintaasi ku dhacday isla gabadhii ayay isla saacadii oo berrita ah u xijaabeen markaa waxay dhahaan wadadii bay martay cidiba lama hadalba cid la hadashayba may jirin taasina waxay ka markhaati kacaysaa sidaa ilaahay u yidhi dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayna taasaa waxay u dhowi badan tahay in la garto qofkani qof dhowrsoon inuu yahay oo aan ilaaq diyaaro ahayn oo la nabadgeliyo idan markaa waxa cabsida la yidhaahdo ayuuba xijaabka ka dulqaadayaa bay yidhahaan ruuxii dumarka ahaa kol haddii xaaladeedu ay caynkaa tahay waxa saddexaad oo ay sheegeen xijaabku bay yidhaahdeen ruuxa dumarka ah ee caariyadda ama aan xijaabnayn way ka kharash badan tahay bay yidhaahdeen iyaga kharashka aada ugu weyn waxa la yidhaahdee qofka dumarka ah ee xijaaban waayo waxay aada ugu howlan tahay inay dhar khafiif oo qaaliya fil asyaa marka la eego ay soo gashato waxyaabo dhaldhalaaliya
ay aada u marsato oo cosmeticska iyo meelaha la isku qurxiyo ay aada ugu badato marka dharka iyo qalabka iyo waxaan la isku udgoonanayo waxa la isku dhalaalinayo sanadkii qadarka xiranaysa aad buu uga badan yahay bay dhahay ruuxa dumarka ah ee xijaaban ee iyadu il ay soo jiidanaysa iyo rag ay soo jiidanaysa aanu jirin way ka kharash badan tahay bay dhahay arrinta afraad jirtaa waxay dhahay waana ka qalaq badan tahay qalaq waa maxay waa dareenka nafsiga ah way ka warwar badan tahay oo intaa waxay ku warwaraysaa tolo maanta waad isqurxisee inankii halkaas malaha saani kuma eegin malaha kaasi ku kaxaysan maayo malaha kaasi ku guursan maayo tolo maxaad isku qurxisaa warwarkaasina waanu aragno uu ku badan yahay bay dhahay baynamaa ama iyadoo tani iska habi tahayoo ilaan kuma hawlana inay rag soo jiidato ama ay arkaya ay tidhaahdeen iska habiyo nafis ay tahay bay dhahay marka afartaa arrimoodba taa cabsida iyo taa cudurrada iyo taa kharashka iyo taa dareenka afartaa arrimoodba waxaanu aragnay bay dhahay taxijaabani inay kaga wanaagsantahay laakiin wax cajiiba iyagoo wax badan sidaa faa'iidadiisa u arka haddana ma kari karaan oo waxay la mid tahay un hilibkaa doofaarka la cunayo iyo khamriga ay cabayaan ay dhibaatadiisa arkeen haddana aanay iska dayn karaynin yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa min saw-aatihima sidaa ilaahay uri ibliisku waxa uu ka siibayaa ehelkiisa dharkiibuu ka siibayaa sidaa uu aadam iyo xaawaba uga siibay ilaa hadda uu wadaa marka waxaynu leenahay waxaasoo faa'iidahayna sagaalkaa faa'iidana way ku jiraan diin iyo maadiba diinna sidaasuu noqdayoo shuruudahaasuu leeyahay marka xaawaladeenna waxaanu leenahay waddanku ilaa hadda waa fiican yahay siduu beri ahaa waa kasoo wanaagsanya markaas shawaaricdeeda marta magaalooyinka wax madax qaawan iyo wax dhar khafiifa gashan wuu yar yahay laakiin intaa ka dhiman hooyooyinkeen iyo hablaheena allaha barakeeya intaa ha ku dadaalaan ilaahayna ha ugu dhowaadaan si ay cibaadadu u ansaxdo وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته